السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا وايدين سلام إيسو دواد إن شاء الله ما شاء الله وحان روا إنا إذين لو داغو dad horey aan order ugu sameeyay oo haddana mar labaad iga dalbadeen alaabta gaaska maxaa la dhihi jiray loo cabo gaaska kaniinigaas oo kale gaaskaas kale jimlo waaye alaabta maasha Allah waa markii labaad dad qaar waa markii labaad dad qaar waa markii saddexaad hadda maanta waxaa imaaday 4 box oo halkiiba ku jiro saddex order oo intaas qof kale almost 7 ruux ayaa waxa u dalbay alaabtaas wayna ka heleen maasha Allah wayna soo amaaneen waxay dhaheen maasha Allah dacaartu waa daawo waxyaabihi xanuunka sheeganayeen oo Ilaahay ugu maxaydo caafimaad ka siiyay Ilaahay ayaa caafiyay insha Allah dadaalkan uu fiican way dadaaleen maasha Allah waa kaasa waa orderkii dad qaar waa orderkii saddexaad dad qaar waa orderkii labaad laba qof baa ku jirta malaynaa oo koow iga dalbaday maasha Allah waa alaabtan waxa waaye forever juice iyo waxa waaye aloe vera gelki oo maxaydo loo cabay gaaska baabasiirka maasha Allah waxaa kaloo dadka saaid ay ugu heleen Rice Kyler meeshaan idinka salaama inta channelkayga daawato maasha Allah tabarakallah garab weynaan ka heystaa maasha Allah waxay iga dalbadeen energy-gaas oo energy-da kala ka fiican maasha Allah ah waa kana isagana waa laba qayb waa idin tusaaya anigoo boxyada hadda boxyadan ka soo bixinayo waa tana qaybta oo caaga cad ku jirto waxa way qaybta lafaha masaajadiisa wadato cabitaan uu wata masaajo maasha Allah inta waxa waa laba qayb waaye laba qof waaye waxa dalbaday waa alaabtii gaaska baabasiirka calool fadhiga ya xitaa dadka goryaanka oo caloosha ugu jiro u fiican tahay daawadan maasha Allah dad badan amaanay oo Ilaahay caafimaad ku siiyay energy waa labadaas qaybna intana waa juice asagana saaid caafimaad oo lemon iyo aloe vera isku darda caarta sideedaba waa daawo maasha Allah waatana alaabtaaneeto daawadaas waa daawadii ilkaha dadka dhiigo maasha Allah ama allergiga ama dadka ilkaha ay cunaan ama dadka afka saaidka ugu shiiro xanuuna keena shiirka faraha badan maasha Allah waa ka asxaabta ugu muhiimsan oo aad iyo aad dhiikarka iyo xaaladaadka wadnaha aad iyo aad qofka ugu muhiima sidoo kale macaankana aad iyo aad ugu fiican hadaba qaybtan dhiikarka wasayniga muuqato waxay ka kooban yihiin shantaa shay amba afartaa shay ayay ka kooban yihiin tan waxa weeyaan waa Arctic Sea oo aad wax laga sameeyay saliidii kalluunka waana omega 3 weeyaan Arctic Sea-dan waxay aad iyo aad ugu fiican tahay saddex meelood maskaxda oo aad iyo aad ugu fiican tahay xididada galaya iyo nafaqeynta maskaxda wadnaha iyo sidoo kale indhaha ay aad ugu fiican tahay cholesterol-shana hoos baa u dhigtaa qaybtan labaad waxa la yiraahdaa garlic and thyme wuxuu ka samaysan yahay toontana waxaynu ogsoonahay caafimaadka ay bulshada iyo caafimaadka ay dadkaba u leedahay marka iyaduna cholesterol iyo waxyaabaadkaas iyo halka wadnaha ay aad iyo aad wax badan ka qabataa tan waa dacartii oo sharaaba waa aloe vera gel waxa iyaduna u fiican tahay qashin saare guud weeyaan sidoo kale xididada ay aad ugu fiican tahay oo mar walo waxay samayso inay jirkii macdantii dhanaanka ahayd ee jirkeena ku badan markuu qofku siiba dhiikarka leeyahay inay hoos u dhigto taasina ay keento inuu xaaladii dhiigu uu dego iniga dambe waxa weeyaan waa Arctic Plus-na iyaduna waa sharaab la qasanayo uu wanaagsan laba meelood bay aad ugu fiican tahay siiba saddex meelood waxay wanaagsan tahay wadnaha iyo xididada sidoo kale muruqyadana waa u fiican tahay marka xididada waxay sameeyeen inay balbalaadhaan xididadu caadi dhiig u mari karo wadnuhuna shaqadiisa si fiican u qabsan karo Arctic Sea-dan habeenkii aroortii qofku xabad buu laba mir buu qaadanayaa tan xabad buu qaadanayaa garlic and thyme-ka tan 60 ml buu qaadanayaa cuntada ka hor tan xabad buu maalintii ku filan inuu qasto
oo laba waqti lama qaadana xabadun baa la qasanaya intaas insha allah hab dabiiciya hadduu macaan qofku leeyahay iyo hadduu dhiigkar leeyahay cholesterolshana hoos ba u dhigaan wadnihii kacayay iyo dhiigkarkii badnaana hoos ba u dhigayaan oo aad iyo aad ma kacayo aad baan nii soo dhaweynaynaa markasta iyo mar walba ku soo dhawaada kambanigeena Forever Living Product waxaan ku heli karnaa alaabo aada dabiici u ah jirkana u fiican haddii duqnimada kaa daba imaatay haddii maxaa la dhihi jiray finanka ugu badan yihiin haddii dhawanaha iyo jirka meelaha madmadowga jirka gale oo kaaga yaalo maasha allah masaajo inaba caadi aan ahayn murqaha u fiican da-da marka daba imaatay aan ku leeyahay waxaa wrinkleska iyo maxaa la dhihi jiray kadkaduudka indhaha hoostooda galo nafaqada laisku cayeeliyo maasha allah inaba caadi maahan alaabaha infectionka ama taranka malab aad u natural ah aadna u macaan maskigan inaba caadi maaha maasha allah dadka saliida lana way marsan karaan dadka saliid la-aantana way marsan karaan maasha soo dhawow asxaabta haddii aad cusub tihiin insha allah like subscribe share and comment mar walbana soo dhawaada waa idin salaam assalaamu calaykum